galab wacan dhageystayaal ku soo dhawaada warka kooban ee raadiyaha dawladda Puntland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan muhiim ah isugu yeeray taliyayaasha laamaha amniga ee u xilsaaran sugidda amniga caasimadda ee magaalada Muqdisho. Ayaa su'aalo ka weydiiyay qaraxii ka dhacay aqalka dawladda hoose ee Xamar. Madaxweynaha ayaa ka dhageystay taliyayaasha ciidanka booliiska warbixin gaar ah oo ku saabsan mas'uuliyadda gaabiska amni ee dhacay iyo halka ay marayaan baaritaanadii ay sameynayeen dhankooda guddiga gurmadka caafimaadka ee xogta xaaladda caafimaad ee dhaawacyadii iyo dadaalkii ballaaran ee ay xukuumaddu ku bixisay sidii loo heli lahaa gargaar caafimaad oo dhammaystiran. Wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda dawladda Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhamancad uu ka mid yahay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan oo ku sugan degmada Baran ee gobolka Sanaag ayaa sheegay inay soo dhisi doonaan golaha deegaanka ee degmada Baran iyagoo odayaasha dhaqanka degmada Baran ka codsaday inay soo xulaan dad aqoon u leh bulshada waxna u tari kara. Golaha deegaanka ayaa la kala diray 19 bishii 8aad ee sanadkeenu soo dhaafay 2018 ilaa iyo waqtiga ma jirin golo deegaan oo ka jiray degmadaasi Baran. sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in sanadka soo socda Puntland ay ka hirgelayaan golayaasha deegaanka oo lagu dooran doono nidaamka xisbiyada badan ee hal qof iyo hal cod. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa jawaab adag ka bixiyay qoraal dhawaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya oo ay ku gacan saartay liiska odayaasha dhaqanka ee loo igmaday inay soo xulaan xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka Jubbaland ayaa lagu sheegay in liiska odayaasha dhaqanka ay soo saari doonaan guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland uu yahay kan rasmiga ah ee u diiwaan gashan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Jubbaland. Wasaaradda ayaa intaa ku dartay in dowladda federaalka Soomaaliya wax shaqo ah ay ku lahayn doorashooyinka deegaanada Jubbaland la filayo inay ka dhacaan dhawaanahan soo socda. Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay sheegtay in gantaaladii ay tijaabiyeen maalnimadii shalay ahayd ee Khamiista inay digniin dhab ah loogu dirayay waxa ay ku tilmaameen qabanqabayaasha dagaal ee Kuuriyada Koonfureed. Gantaalahan waxay ku tijaabisay badda Jabaan gaar ahaan deegaanka dhaca koonfurta baddaasi. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waa Kim Jong Un ayaa sheegay in dalkiisu lagu khasbay inuu samaysto hubka xooggan si uu ugu hortago halista amni. Waxa uu sheegay in tijaabada ay ahayd mid lagu soo bandhigay hub casri ah. Hadalkan Kim Jong Un ayaa imaanaya xilli Kuuriyada Waqooyi ay horay u dhaleecaysay dowlatuska military ee bishii la soo dhaafay. Waa tahay saaxiibayaal waxa intaas nagaga eeg warkii koobnaa ee raadiyaha dawladda Puntland waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Jaamac Abdullaale Eraan. intaan warka ku kulmi doono waxaan idinkaga teginaa sidaas iyo jimco wanaagsan.